daawadayaasheena sharafta badan ku soo dhawaada Galol Medicine TV. Maanta waxaynu si kooban uga hadli doonaa cadaadiska dhiigga. Cadaadiska dhiigga waa awoodda uu dhiigga ku cadaadinayo marinada dhiigga. Mar walba wadnaha garaacitaan sameynayo waxa uu dhiigga ku sii jiheeyaa dhuumanka dhiigga qaada. Cadaadiska dhiigga waxaa go'aamiya 1. Mugga dhiigga wadnaha ku jira. 2. Cadaadiska qulqulka dhiigga. Cadaadiska dhiigga oo korodho wuxuu ka mid yahay xanuunada ugu badan dunida ka jira. Wuxuu khatar mise halis gelin karaa nolosha qofka. Sidaa awgeed bukaanada noocan waxaa loo baahan yahay in si dhow xaaladooda guud loola socdo. Ururka Caafimaadka Adduunka WHO waxay sanada 2015 xanuunkan ka diiwaangelisay in bukaanada dhiig karka qaba ay tiradoodu gaarayso 1.13 bilyan dunida oo idil. Cadaadiska dhiigga wuxuu leeyahay laba cadaadis lagu kala magacaabo. 1. Cadaadiska systoliga waa markuu wadnaha garaacitaan sameynayo deedna uu kordho cadaadiska dhiigga waayo wuxuu bambagaraynayaa dhiigga. 2. Cadaadiska diastoliga waa xilliga wadnaha nasiimo ku jiro wuxuu u dhaxeeyaa labada dhaqdhaqaaq oo afka qalaad lagu yiraahdo lab doob. Aaladaha lagu cabiro cadaadiska dhiigga waxay isticmaalayaan tiro laba qayb leh. Qaybta koowaad waa tirada cadaadiska systoliga halka qaybta labaad ay tahay tirada diastoliga. Tusaale ahaan 120/80 micno ahaan loogu jeedo 120 oo ah systoliga halka 80 uu yahay diastoliga.